السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waxaynu ka hadli doonaa lix item oo ka mid ah itemada khudaarta ee aynu isticmaalno lixda item ee ka mid ah khudaarta aynu isticmaalno waxa ay halis u yihiin oo khatar ay ku yihiin qofka qaba macaanka haddaba dadka badankoodu ayagoo macaan qaba ayay isticmaalaan lixdan item ee aynu sheegi doono kala mid ah khudradda lixda item ee khudaarta ka mid ah saddex waa la kariyaa oo dheriga la kariya ayay galaan saddexna sidooda ayaa loo isticmaalaa haddaba haddii aad xanuunka macaanka qabto fadlan lixdan item ee aan sheegi doono ka dheerow iskala ilaali si aad uga ladnaato oo aad uga bogsato xanuunka loo yaqaano macaanka maxaa sababa in aad macaanka ka ladnaan weydo ambase ka bogsan weydo amba aad hal mar ka nasan weydo xanuunka macaanka waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah waxa aad isticmaashaa khudaarta qarsoon ee adiga kuu qarsoon oo aanad u arkin khudrad markaasi dhibaysa ambase waxyeelo ku keenaysa xanuunka macaanka khudraddaas waa khudradda adiga kuu qarsoon ee aanad adigu u arkeen in ay waxyeelo kuu keenayso ambase dhibaato kuu keenayso dhibaato xaalad caafimaad darro haddaba aan kuu sheego lixda item ee khudradda aad iska ilaalinayso haddii aad qabto xanuunka macaanka waxaa kow ka ah shayga loo yaqaano kaabushka had iyo jeeraale cuntada ayaa lagu sameeyaa waxaana jira dad badan oo macaan qaba oo isticmaala hilibka marka lagu sameeyo ambase suugo haddii laga sameeyo dad badan oo isticmaala shaygaa loo yaqaano kaabushka iyaga oo macaan qaba waxaad halis qarka ugu jirtaa ambase halis aad ugu sugan tahay in aanu macaankaasu kaa tegin in aad degdeg ugu dhacdo xaalad caafimaad darro iska ilaali waa kaabushka laba waa shayga loo yaqaano kaarootaha asaguna halis wuxuu u yahay macaanka sida aynu soo sheegnay had iyo jeeraale asagana waxaa lagu kariyaa dheriga sida hilibka ambase suugada oo kale balse dadka macaanka qaba waa iska caadaystaan oo way cunaan kaabushka iyo kaarootahaba iyagoo moodaya khudrad caadiya balse waa khudaarta u qarsoon qofka qaba macaanka halisna ku ah xaaladiisa caafimaad saddex midka loo yaqaano baradhadu ayadana sida oo kale waxaa lagu kariyaa dheriga waxaanay ka mid tahay waxyaabaha loo adeegsado hilibka had iyo jeeraale marka la karinayo ambase marka la karinayo suugada marka la karinayo marka baarakallahu fiik haddii aad qabto xanuunka macaanka saddexdaas waad ka dheeraanaysaa waanaad iska ilaalinaysaa waa saddex ka mid ah khudaaraha lagu kariyo markaasi dheriga ambase dheriga loo adeegsado waana saddex khudradood oo u qarsoon qofka qaba macaanka asagoo uu u qaato in ay yihiin khudrad caadiya oo uu cunayo borotiin iyo nafaqo uu ka helayo balse maaha borotiin iyo nafaqo ka heli mayside waxaad ka helaysaa xaalad caafimaad darro iyo xanuun kugu soo wajahan mar walba macaankaas oo aan kaa tegayn weliga haddii aad isticmaasho saddexdaa shay balse haddii aad ka dheeraatood iska kaantaroosho saddexdaa aynu sheegnay baradhada kaabushka iyo kaaroodka haddii aad iska kaantaroosho oo aad ka dheeraato waxaa suurtagala in xanuunka macaanka la yidhaahdo uu kaa baxo oo aad ka caafimaaddo waxa aynu sheegi doonaa saddexda kale ee ayagana sidooda loo isticmaalo kana mid ah khudaartan la isticmaalo una qarsoon qofka qaba macaanka asagoo qofkaasu aan u haysan in ay waxyeelo ku keenayaan khudaartan kow shayga la yidhaahdo mooska shayga la yidhaahdo waad iska ilaalinaysaa had iyo jeeraale waa mid la caadaystay oo la cuno balse qofka macaanka qaba halis ayuu u yahay waxaanu u keena xaalad caafimaad darro waxaana 100% hubaal ah shakhsiga isticmaala in aanu ka bixin xanuunka la yidhaahdo macaanka laba waxaad iska ilaalinaysaa midka loo yaqaano qaraha ambase xabxabka midka loo yaqaano asagana waad ka dheeraanaysaa haddii aad qabto xanuunka macaanka waad ka dheeraanaysaa waad iska ilaalinaysaa waa cunto dabeeci ah dadkoo dhan caadaysteen had iyo jeeraale dadka macaanka qabaana ay cunaan iyagoo aan u haysan wax dhiba iyo wax waxyeelo ah inuu ku keenayo iska ilaali baarakallahu fiik saddex liinta loo yaqaano liin macaan
haddii aad maqasho ayadana waad ka dheeraanaysaa haddii aad qabto xanuunka macaanka. saddexdaa dheriga lagu kariyo iyo saddexdaa caadiga ee sidooda loo isticmaalo, lixdaa item ee ka mid ah khudaarta markaasi la isticmaalo, lixduba waxay halis ku yihiin qofka qaba macaanka. halis bay ku yihiin, waxyeelana way ku keenaan, halisna qarka uu u sugan yahay. qofka macaanka qaba haddii lixdaa item ee khudaarta ka mida uu isticmaalo, qofkaa weligii macaanku kama tago, kamana ladnaado, kamana bugsado weligii macaanka. haddii aad iska ilaaliso lixdaa item ee aan soo sheegay ka mid ah khudaarteena, qaarna lagu kariyo dheriga, qaarna sidooda loo isticmaalo, lixdaa item haddii aad iska kaantaroosho ood iska ilaaliso, waxaa hubaal ah 100% si degdeg ah in aad u caafimaadi doonto, una dareemi doonto xaalad caafimaad marka aad iska kaantaroosho. waxaanan kuu hubaa in uu xanuunka macaanka la idhaahdo kaa tegi doono oo aanad dib isugu arki doonin haddii aad iska kaantaroosho lixdaa item ee ka mid ah khudaarta aynu isticmaalno. dadku ayaga oo dawo qaata, dadku ayaga oo markaasi la dagaalaya xanuunka ku jira korkooga, ayaa waxa ay isticmaalayaan lixdan item ee ka mid ah khudaarta ayagoo u arka wax dabiici ah oo caadi ah oo aan ku kicinayn macaanka, ambase aan dib u keenayn, ambase xanuunkiisa aan waxyeelo ku keenayn. balse waxaad halis ku sugan tahay lixdaa item marka aad isticmaasho, aad iyo aad buu macaankaagu u kacayaa, waxaanad qarka u saaran tahay in markaasi xaalad caafimaad daro oo degdeg ah emergency lagugu dhigo dhakhtar. waxaa sidoo kale hubaal ah in aanad ka bogsan doonin weliga iyo cimriga haddii aad lixdan item ee khudaarta ah isticmaasho adiga oo qaba macaanka. marka baarakallah fiik, iska ilaali lixdaa item ee ka mid ah khudaarteena oo aad isticmaalayso adigoo u arka inaanay waxyeelo iyo dhib kugu keeneen. waxaa jira dad badan oo isticmaala haddana ka yaaban waay macaankaagii u degi waayey, waay u caafimaadi weyday, waay xaalad caafimaad u dareemi weyday, waay isku bedeli weyday. waxaasoo dhan sabab u ah kaabush ayaad ku quraacanaysaa, kaabush ayaad ku qadaynaysaa, kaarote, baradho, sida oo kale moos, qare, xabxab iyo liin macaan. intaas haddii aad isticmaalayso macaanna qabto, weligaa ma caafimaadaysid, macaankaaguna ma degaayo, xaalad caafimaadna weligaa ma arkaysid.